Fidel Castro dalka Cuba ayuu hoggaanka u hayay muddo nus qarni ah iyadoo xisbigiisii oo kaliya dalkaasi uu ka talinayay. Xilli shuuciyadda calankeedu uu ka sii dhacayay caalamka oo dhan ayaa calanka Castro ee casaanka ah wax uu ka agbabanayay calanka Mareykanka oo ah cadowgiisii ugu weynaa. Taageerayaashiisii ayaa ku ammaanay in uu ahaa hogaamiye askari siyaasi ah ee dadka reer Cuba usoo gacan geliyay dhulkooda isla markaana ku guuleystay mabda'iisii hanti wadaagga ahaa. Balse waxa uu wajahay eedeymo ah in uu cabrin jiray mucaaradkiisa isla markaana uu dhiirigelin jiray siyaasado curyaaminaya dhaqaalaha dalkiisa. Fidel Alejandro Castro waxa uu dhashay 13 bishii Agoosto 1926 waxaana ka soo jeedaa qoys beeraley ah oo maalqabeen ah kuwaasi oo ka yimid dalka Spain. Hooyadii Lina Ruz González waxa adoonsi ahaan u haystay aabihii oo uga shaqayn jirtay beertiisa kadibna waxa ay noqotay xaaskiisa markii ay dhashay Fidel Castro. Castro ayaa waxbarashadiisii ka bilaabay iskuulada lagu dhigo madaahibta Kaatooliga ee Masiixiyadda, balse markii dambe waxa uu ku guuleystay in waxbarashadiisii uu heer ka gaaro waxa uu waqti badan u geliyay dhanka ciyaaraha. Isagoo jaamacadda Havana arday ka ahaa ayaa bartamihii 1940-yadii waxa uu noqday nin u ololeeya arrimaha siyaasadda waxa uu noqday aftahan. Shuuciyadda iyo Castro waxa uu siyaasadiisii ku bartilmaameedsaday madaxweynihii horeeta ee Cuba ee xilligaasi la oran jiray Ramon Grau oo xukuumaddiisu ay wajahaysay eedeymo ka dhan ah musuqmaasuqa. Dibadbaxyo rabshado wata ayaa dalka ka curtay waxaana Castro uu noqday bartilmaameedka booliiska. Waxa uu sidoo kale ka qayb ahaa qorshe la doonayay in lagu afgambiyo hogaamiyaha garabka midig ee Dominican Republic ah Rafael Trujillo, balse qorshahaasi ayaa fashilmay kadib markii uu Mareykanku uu arrintaasi uu soo farageliyay. 1952 ayaa Fulgencio Batista waxa uu weerar ku qaaday dowladda waxaana afgambiyay xilligaasi madaxweynihii Cuba ee Carlos Castro. waxa uu samaystay xilligaasi kadib dhaqdhaqaaqa si hoose uga shaqeeya sidii loo inqilaabi lahaa dowladda Batista. waxa uuna bishii Luulyo ee sanadii 1953 qaaday weerar fashilmay oo uu ku doonayay in uu hub ku furto. waxa uuna ka mid noqday maxaabiistii dagaalkaasi lagu qabtay waxaana lagu xukumay xabsi muddo 15 sano ah. 1955 ayuu cafis ku soo baxay waxa uuna u cararay dalka Mexico. hase yeeshee sanad kadib ayuu dalka dib ugu soo laabtay waxa uuna saldhig u ka dhigtay Buuraleyda Sira halkaasi oo muddo 2 sano ah uu ku jabhadeynayay. labadii bishii Janaayo sanadii 1959 ayay falagadiisu waxa ay gudaha u galeen caasimadda Cuba ee Havana, arrinta oo Batista ku qasabtay in uu dalka ka cararo. boqolaal ka tirsan taageerayaasha Batista ayaa la qaarajiyay kadib markii maxkamad la soo taagay. dowladdii uu Castro madaxweynaha ka ahaa ayaa markiiba ballan qaaday in dalka gacanta loo gelinayo dadkii lahaa isla markaana ay difaacayso xuquuqda dadkeeda saboolka ah. hase yeeshee isla markiiba dalka waxaa lagu soo rogay hanaan siyaasadeed ee ah halka xisbi waxaana xisbigaasi laga dhigay boqolaal qof halka kumanaan kaleeto oo ka mid ah hantiilayaasha dalka ay isaga qaxeen dalka. sanadii 1960 ayuu Castro waxa uu dhammaan ganacsigii dadka Mareykanka ay ku lahaayeen dalkiisa uu ku wareejiyay dadka reer Cuba. Mareykanka ayaa arrintaasi uga jawaabay xayiraad ganacsi oo ka dhan ah Cuba, xayiraadda oo soo gaartay ilaa qarnigii 21aad. sanadii 1961 ayaa Mareykanku waxa uu damcay inuu afgambiyo dowladdii Castro, balse arrintaasi waa ay ku guuldareysteen. kadib CIA-da Mareykanka ayaa isku dayday inay qaarajiso oo waxa ay xitaa sidoo kale dhowr jeer isku dayday in ay sigaarka oo inta badan uu isticmaali jiray Castro ay ugu darto suntaasi oo u sababi karto in uu dhinto. inkastoo Cuba ay xayiraado dhaqaale saarnaayeen haddana waxa uu dalkaasi u gaaray guulo fara badan waxaana shacabkiisa u suurtageliyay inay helaan daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah.
31 bishii Julaayo sanadii 2006 ayuu Castro si kumeel gaar ah xukunka ugu wareejiyay walaalkiisa Raul kadib markii lagu sameeyay qalliin dhanka xidmaha ah waxaana sii xumaaday xaaladiisa caafimaad ilaa uu sanadii 2008 si rasmi ah uu xukunka ugu wareejiyay walaalkii. Dhamaadkii sanadkii 2014 ayaa madaxweyne Obama waxa uu shaaciyay in Cuba laga qaadayo xayiraadaha saarnaa muddada nus qarniga ah. Fidel Castro ayaa aad u soo dhaweeyay arrintaasi waxa uuna ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo lagu xallinayo wixii dhib dhacay. Inkastoo dad badan oo reer Cuba ah ay nacayb badan u qabeen, haddana waxa uu Fidel Castro muddo dhan nus qarni uu hogaaminayay dadka reer Cuba, waxa uu ahaa madaxweynihii ugu cimriga dheeraa ee dal hogaamiya caalamka inta la hayo.